waxyaalaha aan la yaabanahay waxaa ka mid ah waxaan arkay ninkii fiqiyaha oo caanku ku ahaa inuu maamulgoodada caayo kale siyaasiyiinta mucaaradka caayo u jawaabo waa wasiirkii gaashaandhiga ahaa oo weligiiba aan la aragba isagoo xero ciidan iyo wasaaraddiisa ay ka shaqeynaya ama maartay nimanka al-shabaab dirirkooda ay ka sheekeynaya ninkii waxaan arkay sawirkan si koreeyay sawirkan iyo oo ciidamo isku aruurinaya oo xiriyaha booqanaya oo afka hore taagan war waxa maxaa isbedelay soo waxba isma bedelin waxa dhacday waa tuu Mareykanku yiraahday Soomaaliya hadda kadib muuqaal baynu kaga hadalnay caawin mayo haddii December la gaaro bisha u dambaysa sanadkan haddii la gaaro ciidamada shisheeye oo Etoobiyaanka iyo Burundiga iyo Djiboutiyaanka iyo Kenyaanka waxa halkaas lagu ururiyay Soomaaliya xoreynayaan beenta khayaaliga meesha ku cuna biilka ku cuna ninkii Trump ee maamulkooda watay dheen biilka wuu ka jarana haddii sanadkan uu dhamaado waxa weeyaan maarta waxba nagu ma lahan sababtuna waxay ku sheegeen in dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud hadda hogaaminayo xukuumadda iyo nimankaasiba inaysan ka guuleysan nimankaas dhulna ka qabsan lana dirin xalna ka keenin labadaba marka sidaa darteed ku daaleen lacag dambana aysan bixinin ayuu Trump sheegay waana wax wanaagsan Trump warkaas waa ugu hambaliyay waxa ruulahay wax wanaagsan waan ku farxay sababtoo waxa kan caruurtooda meesha ka bishaan siyaasiyiintuna meesha ku cunaan xeerada xalna iyo midowga Yurubna horey wuxuu dhahan sanadkan wax ka dambeeyo waxuma bixin doono marka waxa shiray nimankii awsam la baxay waade ciidamada shisheeye saraakiishoodii iyo hay'adahoodii iyo dadkoodii baa shiray xalna iyo Addis Ababa ku shiray meel walba kadibna waxay ku heshiiyeen haddii aan la helin cid Mareykanka bedesho ama Yurub aysan caawin ama xal kale keenin in ciidamada shisheeye ay iskaga bixi doonaan wadankan waxay kaloo raaciyeen in dowladda Soomaaliya khatar ay ugu jiri karto in al-shabaab la wareego arrinkaas xataa dowladda Soomaaliya ay ka jawaabtay marka hadda xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkiisa dadka caay jiray waxay biloobeen in hadda wax abaabulaan 4 bilood baa uga hartay inta loo qabtay ma kula tahay marka 4 bilood xataa dhulkii uu ka qabsaday al-shabaab ka soo celin karaan yaabaalay intii dhul xamarsoonaya 150 ka jirtay iyo 200 dhulku ku hareersan laga qabsaday xataa ma soo ceshan karaan مقولته أفر سنة نمان وحكينه واي أفر بلاد الله قبط وحكو كينا هيالي يدينا كينا هذا ونقول مع السلامة نمان كام يسكعلي عم هذه قبصتان عم يسكعلي عاصمة الكوي بدن عم تشوف اللي حمدوها وطقنا قبصتان إذن كيني طلع نوك يعني مشروع يقدم بواسكاب حنا مش أي تاجين اللي عد بريس نسينا سمانيكي بريس كنسين شري مش مكبر حياة مركو على الفدينية أفر بلاد بالفقه أنا وجدان أفر سنة ساعة تمي أفر بلاد مو كيني كرا فلات أفر بلاد أقول هذا السمين أيوه أو ليه وحنا أولي وحنا بالكيني وحنا دجال بقالنا أفر بلاد بالمحبو كيني كران نين شالي فردي شغي سانجرنين حلقي سانجرنين حسن الشيوخ محمود صفر كده ما هو عاصمة عمانية هذا عاصمة الدوشة هذا الغوفر ديا هاي nimankii sanka weynaa aeroboort ku ilaalinay halka ku joogay waxay waan ka baxaynaa ninkii lacagta siin jirin wixii lacag siin mayo caasimadu baamaan bay haanaysaa markaas aan ma socdo runta idin sheego sideeda magaalada ayaa iska leeyahay magaalada waxa iska leeyahay ninka caanaha iyo cadayga keena magaalada ayaa xukuma baaliyay magaalada waxa xukuma ninka hareeraheeda haysta xukuma tuulooyinka degmooyinka ciidka wadooyinka ninka jooga ayaa magaalada xukuma hadaad hal magaalada inta xirato laakiin degmo ka tuulo laga haysto awoodeeda malihid xagga laga soo gali karaa marka shalay wax qaban weydeen ayaa afar bilood isku dayeystaan hadda keentaan wadan kuwa hambalyeena way dadaalaysiin laakiin wax waxay tahay haddii afarta bilood waxba keen weydaan Mareykanna lacagtiisa yiri waan goostay Yurubiyaankan halka ka baxeen ciidamada shay ka baxaan oo fiqiya xamse iyo xasan oo miin isku filneen ciidamadiina Soomaaliya meeya waxay tababaranayseen ma yahay jiraan awood iskaga celisaan wiilasha yararkaayo gambasaarku huwan oo dur ku jira bilaa nafaqada miinan hayn qorsho ma haysan iska celin kartaan dagaal lama geli kartaan nimankaas inay amaleeshiyaan ama sidoo kale dagaalamaan labada mid ma sabir war nimankan macallimiintoodii baa jooga Axmed Madoobe halkan jooga Roobo baa idin kamida Sheekh Shariif Abiyashi soo aasay baa jooga Xasan Daarweys baa jooga macallimiintii odayaasha way joogaan marka inay macallimiintooda u dirtaan tiraahdo warnimo wada hadalno oo si dhaba waxa doonaysaa inuu ognahay diinta anagu sharad ku leenay ragina ku leenay qaar madaxweyne soo noqday qaarna halkan ku xirayeen qaarna waa wasiire ina sidaas wala hadashaan hatta fiqi laftigiisa ardaydu kamid ahaa shalay waduur ka soo xaroodo hatta kii koori ardaydu kamid ahaa hadda duur ku jirta ma garatay xaqiiq noocaas inay wada tagtaan iyo inay la dagaalamtaan midna miina sameyn marka maanta kabashtiina waa loo jeedaa
annaga waa inoo maartay bisha 12aad miidinka guuleysan doona nimanku way iska celin doontaan ama waa la dagaali doontaan ama heshiis bay keeni doontaan mise ilaa 4 bilood kuma keeni kartaan mise waa idinka qabsan doonaa inta yartaad ku fafaantaan iyo dowladnimada iyo magaca ay systemka sheegtaan inuu walba ka jiro taas bisha 12aad ilaahay hadduu na gaarsiiyo wada joognaa